صباح ولكن جنرال محمد نور جلال فرحت أي إيتهاي إن أقول كل ما مجال هذا مقدسه ورئيسنا كقاضي سلو واحد يجور أنت مركه هربل على شذاذ يو سيدات كبر بارتي برنامج كيان بالله ونينا هاي سلو بسم الله الرحمن الرحيم أنا واحد waxaan ku dhashay meel la yiraahdo Turdhiic oo ahayd markaas Dhuusamarre u dhow waayahay Dhuusamarre markaas waxay ahayd tuulo yar oo Ceelbuur ka tirsan degmada qadiimka ah oo Ceelbuur la yiraahdo ayay ka tirsanay waayahay marka laakiin buugga waxa igu qoran diiwaanka inaan Ceelbuur baadiyihiisa ku dhashay miyiga fog waliba waayahay markaan qiyaasay waa 1938 واو ووقتي قوضها استعمارك القلبات قارة أفريقيا ولي إنجليز كي تشوفي أنا ما أعرف إنجليز كاس كنتونكي كن سجال بقول كنتونكي أيام صاغ المجال مجال العلبور هو يدي شوكتي أيام صاغ لي أنت كورس بديان رد بديانا لو أنا إلالي جيلا إلالي فردان إلالي حلبسو إلالي waayahay marka waxaan la kulmay Talyaaniga markaa soo galay trusteeship ayaan la kulmay halkaas aan galaaskii koowaad ka bilaabay oo Ceelbuur waayahay marka galaaska hal gaalo karabiyeeriha meesha jooga gaalkaas dhigayay hal nin soldaat qolka lagu dhigayna wuxuu qol ka tirsan xabsiga dhexe البور كويلا وصوتهم هاي اسمه كلميان هاي ما لهين meeshana maxaabiis kuma jiraan cidlo ah marka halkaas aan ka faa'iideysanay adiga halkaas aan sanadii koowaad galay sanadii labaad waxaan imid Dhuusamarreeb oo markaas laga furay galaaskii labaad ee xayalahaas halkaas aan galaaskii labaad ku sameeyay galaaska saddexaad ku sameeyay markaasaan xamar u soo bedeshay way xamar igu kaadi miyiga fog ee Ceelbuur intaadan Ceelbuur imaanin miyiga noloshiisa maxamed nuur galaal dabiicadiisa barbaritaankiisa shakhsiyad aankee ah ayuu ahaa waxyaalaan ahaa 10 jir ah ayaan ku soo gaaray marka saan ku sheegana noloshaas reer miyiga ayaan ka soo qayb qaatay xoolahan ilaali jiray anigu xoolashoodu ma gaarin waagaas ariga iyo ari ma raacin waxaan raacay lo iyo geel fardana waa raacay farda badan aan lahayn anaga oo la dhaqanayay waayahay fardahaasna waa ilaali jiray waliba Ceelbuur banaankiisa waxyaalahaas aan ku ilaali jiray habeenkii baan ilaali jiray oo darmaana yar yar oo dhashay waraabaha laga ilaali jiray waraabaha ka ilaali jiray marka sidaas oo miyiga ugu soo koray geedaha dhan iyo waxaas oo dhan iyo dhirta iyo nolosha miyiga iyo waxaas oo dhan waa kala way marka qoys aankee ah Soomaalida qoysaska walu kala doonaa nolosha ama miyiga ahaato ama magaalaha ahaato hadii lagu yiraahdo generaal qoyska aad ka dhalatay ee aabi iyo hooyo qoys aankee abi ahaayeen noloshooda iyo garaafka halkay uga jireen nolosha miyiga waqtigaas la joogay waxaan ahayn dadkii ugu roona ayaan ka mid ahayn حولان لهين معروف عن كواهن فرضها غير جلال أنا لقيت هذا أنا جو حل إيرا محمد نور جلال حقه يدنا وحن كاهن من عمر محمود هو غير قلفه مركا حقه وذاك وحن كاهن هو قدر عايره أيان لا مركا هذا وفرح سنة أنا لو أشوف كذا شيء وياي مركا لو سمر ما تميد ما حكوا حاجة جلاسكي كواد markaan dhameeyay odayaala ila galay oo laba hay markaas wax dadoo dhalinyaro odayaalkii hadii waa ka gudbay markii hore iga fiicnaan oo fashistadii ay ahaayeen alfabeetka iyo waxa soo yaqeeneen ayaamii hore waa ibadowsadeen laakiin markii dambe waa hikaadii iyo wixii la gaaray wayahay Dhuusamarreeb markii aad timid waxbarashadii halkii baad ka sii waday sax ها كسر جلاسك كوادن كل مي جلاسك لوادنا وحنا هذه Dhuusamarreeb بلي Dhuusamarreeb جلاسك لواد يا متك صدحات marka Talyaani wax lagu baranay waqtigaas Talyaani lagu baranay wax kale ma jirin Talyaaniga cusbaayo trusteeship ka ayaa iskuulad meel walba ka furay
marka iskuulaadkaasaan galay marka fahamkaagii iyo garaadkii cashari la qaadanaya ma luqaday ahayd mase saynis kale idin barayo talyaaniga maya hadba galaas walba wuxuu leeyahay program baa jira oo maaragtay oo degsanoo wasaaradda ay soo dejisay tacliinta marka aad bay nimankaas aad bay dadka wax u bari jireen talyaaniga aad bay wax u bari jireen maxaa ku xigay generaal maxamed nuur galaal dhuusamareeb markaan galaaska saddexaad dhameeyey ayaa xamar waxaa laga furay dugsi la yidhaahdo college militare oo ah boarding military school waxaa gelayey dadkii askartii weegaas joogtay ay dhaleen iyo kuwii dagaalkii ku dhintay agoonta ahaa ayaa gelayey oo labadaas bis ayaa loo ogolaa lagu baro marka anigu kuwaas dambaan ku jiray aniga aabahay dagaalkaasoo ku dhintay oo maaragtay meel la yidhaahdo ceelwaaqaana aad aragta ayay ingiriiska iyo talyaaniga isku qabsadeen halkaasoo ku dhintay marka markhaati keensaa la yidhi nin marshaalahayo ay cidda saaxiib ahaayeen oo warsangeligaas daarood ah oo warsamajoor la dhihi jiray ninkaasaa cidda dhanna yaqiinay aabbahayna yaqiinay awowgayna yaqiinay wax walba yaqiinay ninkaasaa markhaatigii furay bas imtixaan baa marka sababtiisaad ku heshay waxbarashadii markhaati furkaas imtixaanna waa la iska qaadaya imtixaan baa laka qaada annagoo 5 iyo 6 waxaanan ma aqaan markaas gelayay kuwii imtixaankeena koow baa noqday waa kaalinta koowaad ka gashay kaalinta koowaad ka gashay waaw nin faham badan baad ahayd markaas adigu talyaaniga waa ku dadaali jiray bas markii aan ku baasay imtixaankiina kollejadii hore ka galay waayahay waxay ahayd 1953 waa 53 weeye markaan kollejada gelaya 57diina galaaska 8aan dhameeyey oo intermediate-ka ay dhahaan marka waxaad baranaysaa waxay ahaayeen ciidamada iyo maya iskuul caadiya waa iskuul caadi ayaad baranaysaa programkiisa iyo wixiisaasoo dhana barnaamijka caadiga ah oo iskuulaadka caadiga laga dhigo ayaana loo dhigay waxaa ku siyaada ahaa wax yaroo military ah ayaa ku jiray oo nolol military baa meesha laga abuurayo dagaardiga iyo jinaastikada iyo waxa orodka iyo boodada wax laga yaabay ahayd cajiib generaal maxamed nuur galaal dabcan markii waxbarashadaada elementaryga ilaa 1957 aad imaanayso waxay ku soo aaday waqtigii maxmiyadda ama daakhiliyadda talyaaniga ee dhulka Soomaalida aad u maamulayeen imaanshiyahaagii muqdisho haddaad iga sheekayso muqdisho seebaad ku timid muqdisho waxaana soo qaaday baabuur yar oo jiib ah ayaa dhuusamareeb naga soo qaaday waayahay waxaa nala socda oday salaad bay la dhihi jiro ma maqash aad iyo aad oo cabdiqaasin aabihiis waaye cabdiqaasin salaad xasan madaxweynaha dowladda kumeel gaarka ah odayga wiil uu dhalay ayuu wuxuu u reebay meel la yidhaha kolleja Soomaaliya anigana waa laygu soo diray waxaa leeyahay wiilkaanna waxaad geysaa kolleja military waayahay marka halkaasaan ka soo baxnay marka waa sanadkaasi adiga iyo sanadaas soo qacaysa waa 53 muqdisho aad imaanaysaan muqdisho aan imaanayna bas fisha governorna la keenay meeshaan la yiraahdo fisha governor oo magaalada iyo wixii joogaan bas odaygiina hadda meesha iskoolkii xaggahayo aaday anigana waxaa la iigu yeeray mid xidig la ahaayoo talyaani ah oo kolleja militarada director ka ahaa maamula ka ahaa waayahay director u ahaa kaasoo la iigu yeeray waxaa la wiilkaanu meeshaasuu rabaa gacanta u qabtay wuxuu ii geeyey cid talyaaniya ilaa meesha cid kale kama aqaan isaga marka kaligaa baa tahay salaadku lama socdo waayahay cid talyaani uu ii geeyo bil baa ka dhiman waqtiga imtixaanka la gelayay bishaas wuxuu yidhi wiilkan iyo haya talyaani